gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u ciideeyay Faysal Cali Waraabe ayaa habeennimadii xalay tolo ahayd magaalada Hargeysa casho sharaf ugu sameeyay dhaqaatiir ka socotay dalka Taiwan oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa Somaliland. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay madaxii wafdigan dhaqaatiirta ah ee ka yimid dalka Taiwan, wuxuuna u mahad celiyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u ciideeyay Faysal Cali Waraabe isagoona ka warbixiyay waxyaabihii uu la kulmay muddadii ku sugnaa Somaliland. dhanka kalena waxaa halkaasi ka hadlay Dr. Axmed Shiciir oo ah wakiilka dhaqaatiirtani ka yimid dalka Taiwan. imika muddo 5 cisho ah waxay ka shaqeynayeen wadanka 4 cisho waxay ka shaqeeyeen gobolka Maroodi Jeex, maantana waxay ka shaqeeyeen magaalada Gabiley. waxay daweeyeen dad lagu qiyaaso 1200 iyo dheeraad oo dadkaasi waxay ka faa'iideysteen fursadda caafimaad ee inoo suurtageliyeen dhaqaatiirta Taiwan ka timi iyo tiimka reer Somaliland ee u kacay dadkooda reer Somaliland sidii ay maaragtay primary health care-ka kor ugu soo qaadi lahaayeen. waxaa jira dad badan oo dan yar ah oon awoodin inay tagaan cusbitaalada iyo goobaha caafimaadka. ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u ciideeyay Faysal Cali Waraabe, wuxuuna dhaqaatiirtani ka yimid dalka Taiwan uga warbixiyay qadiyadda madax bannaanida ee Somaliland. waxaan aad ugu faraxsanahay kooxdani dhaqaatiirta ee ka timid dalka Taiwan mar kale waxaan ku faraxsanahay shaqooyinka ay qabteen 4 cisho ee ugu dambeeyay. waxay siinayeen adeegyo caafimaad oo bilaash ah in ku dhow 1,280,000 qof oo u baahan oo ku nool magaalooyinka Hargeysa iyo Gabiley. marka aynu eegayno taariikhda qarankeena ma laha dhaqaatiir ku filan maxaa yeelay dadku ma helaan adeegyo ku filan. dalkeenu waxa uu mahadnaqayaa cid kasta oo dalkeena waqti gelisa sida kooxdani dhaqaatiirta ah ee ka timid dalka Taiwan. Somaliland waxay leedahay cisbitaallo fiican, sidoo kale way koraysaa iyada iyo dadkeeduba. waxaan hubaa kooxdiinani dhaqaatiirta ahi intii aad ku sugnaydeen Somaliland inaad taariikh wanaagsan ka qorteen iyo waxyaabaha ay Somaliland u baahan tahay. sidoo kale Somaliland waxay u baahan tahay aqoonsi caalami oo degdeg ah. waxaanu leenahay sharciyo, waxaanu xurriyadeeda qaadanay 1960kii. waxaanu kala maqnayn Soomaaliya in ka badan 28 sano. ilaa hadda ma jirto wax xal oo labada dhinac ay gaadheen. waxaan hubaa in adduunku ka warqabo xaqiiqda dhabta ah. ma jirto sharci caalami ah oo weli adduunku aqoonsan yahay, balse adduunka weli waxa uu diiwaan gashan xadkii hore. Somaliland waa dal qaniya oo leh kheyraad dabiici ah oo ku habboon wax soo saarka. Somaliland waxa ay nabadda ku gaadhay wax wada lahaansho oo ay kaga dhex muuqatay qaaradda Afrika. waxaanu qaadanay 2 hab oo adag oo ah sidaanu la macaamilo wadamada jaarka sida Ethiopia. Soomaaliya weli waa ay firqsan tahay. Somaliland qorshaheedu wuxuu yahay Somaliland qayb kama aha urur goboleedka IGAD iyo midowga Afrika, laakiin way jiraan dadaallo ay Somaliland ugu jirto sidii ay uga mid noqon lahayd ururada midowga Afrika. waxaanu u gudbinay ama aanu isku daynay sidii Somaliland ay mar uga mid noqon lahayd wadamada midowga Afrika iyo sidoo kale wadamada aanu xadka la leenahay. sidoo kalena aanu cimilada wadaagno oo leh cimilo wanaagsan iyo taariikh wanaagsan. laakiin sida Yurub horumarka u samaynayso ee aanay u hayn sidii ahayd 500 oo sano ka hor. ayuu waddan kasta u samaynayaa kubac u gooniya oo madax bannaan. sidaas oo kale ayayna u korayaan waddamadaanu xadka la leenahay.
aad ayaad u mahadsantihiin waxaan aad u xiiseynayaa in ayaamaha idin hadhay aad booqan doontaan meelaha taariikhiga sida laasgeel laakiin waxaan filayaa inaydaan wakhti u haynin inaad tagtaan magaalada berbera waxaad ka helaysaan meelo nadiif oo lagu dalxiiso badara maaha meel dad badana ay ku dabaashaan sidaa darteed sidaa doontaan ayaad ugu dabaalan kartaan cabdijabbaar maxamed xuseen telefishinka Ariel hargeysa